titoraysa xamdi aad baan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan aan ka soo qayb galno anoo ku hadlaya magaca afka jaamacadda City Code xamdi oo kamid ah ardayda jaamacadda City Code ahana gudoomisada ardayda jaamacadda City Code waxaan qirayaa anigoo ku hadlaya maamulka jaamacadda inay xamdi tahay gabadh adag gabadh aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaanba dhisan inta kadib runtii buugan caaw wuxuu leeyahay muhiimad gaar ah waxa laga hadlayo waa gabadh lafdhabarna waa bulshada qaybta u muhiimsan bulshada ka runtii buugan kama hadlayo waxyaalahan waayadan dambe reer galbeedku inoo soo guuriyeen oo mujtamaceena ku soo badanaya inta buuga akhrinayay wuxuu xoog saaraya tilmaamaha gabadha wanaagsan sida diinta akhlaaqda iyo aqoonta iyo kartida gabadha sababtoo tusaale u soo qaadanaya xaasaskii nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo gabdhihii asxaabiyaadka inta kadib waxaan bogaadinayaa xamdi oo buuga qortay hadalkayga anigoo dheeraysiinayn maadaama waqtigu yar yahay waxaan leeyahay xamdi aad baa u mahadsan tahay runtii waxa qaaday talaabo miisaan leh in buug la qoro wax sahlan ma waa inuu qofku wax aqriyay aqoon ahaan iyo xirfad ahaan uu dhisan yahay runtii buugan waxa la rabaa caaw in la gato qof walba oo halkan ka soo qayb galay iyo qof walba maqalma wuxuu leeyahay muhiimad gaar ah waa buug ka hadlaya hooyooyinka iyo gabdhaha oo bulshada يعني مقامكي كجوغان اوغنahay marka waxa ku bogaadinaya inuu qof walba buugan qaato kaliya buuga inaan la qaadan ee la akhriyo anu buuga waan akhriyay horaan u akhriyay buugan waxa uu ka hadlaya wax yar ma aha runtii waa buug ku salaysan diinteena waa buug ku salaysan aqoonta iyo xirfadda iyo wax kasta ee wanaagsan ee gabadhu leedahay hadalkayga waxa ku soo gabagabeynaya anigoo ku hadlaya afka jaamacadda City Code waxaan halka ka ballan qaadaynaa oo qaadaynaa 15 buug waana mahadsantihiin